dhawaada waa Mawlid Sam iyo muuqaalka la cusub caawa halka waxa ku jira saad u jeedaan 100 su'aalood saaxiib yar soo dhawaada waa Mawlid Sam iyo muuqaalka la cusub caawa saad u jeedaan halka waxa ku jira 100 su'aalood oo taabanaya si shakhsiyan ah runtii su'aalaha ku jira dhan yar baa diyaariyay barnaamijka marka waxaan ku bilaabayaa labada nin hareega xiga ugu horeyn Hannah Banks دكتور كلا عجلة دكتور بابا سود واسكت يا دكتور خلينا كستا وحنا كلا بحياة ليه سؤالات يجي برنامج أما برنامج كسنة هل سؤال بارو كوي أنا إن شاء الله تدخلنا ودي كيني دونا مركب برنامج كيني من حقه هركب لعبنا سؤال بربنا بالك كنت شري على ضو وحي كوسو بحس دعاء ذو شباب أنا وين كشباب كشباب تسوى أنا شباب اللي جوايا ويا حي يا بلابا يا شبلازة let's see sheeg wax aad ka weynaatay haddana aad jeceshahay inaad samayso waxaan ka weynaaday laakiin aan jecelahay inaan sameeyo ini horta filan kartoon badan baan daawan jiray marka yaraawo weli waan daawadaa filan kartoon horta ma laga weynaaday dini marmar eeg Tom and Jerry waa lagu noqnoqdaa waay waa classic you know why not أنا مرة سوما ود بدلك تهود كاسي توم تشيربو waxaan ku wadi wax kasta markaad yarayd maxaad jecleed inaad noqoto mustaqbalka ya salaam Allah maxaa laba wax baan jeclaa inaan fanaan noqdo iyo inaan model noqdo marka waddanka way ka bixi waayaan laga taaliyo bariyaad xidhanaysaa dhibku gaabe model inaad noqoto maxaad ku dooran jirtay inaan wallaahi ma garanay laakiin waa iska jeclaa inaan maryo badan xidhanayo socodkoodana waa ka heli jiray waxaa la yidhaha qofku markuu maryaha haysiiyo maryaa la siiyaa moogta kuwaana iska qaadaan islaa fankana waa jeclaa okay su'aashaadii labaad taydii labaad baan imika qaadaya hadaba let's go okay muxuu ahaa wixii ugu layaab badnaa eed weligaa samaysay mar kalese dib ma u samayn lahayd Soomaaliya akhriskiisa labada igu adag hadalkiisa wuu fududee mar kale see dib ma u samayn lahayd okay wax la yaab leh aan sameeyay oo haddana aan dib u samayn oo haddana su'aasha waxay mar kale ma samayn lahayd al biriban intan moolka tago magarasa iyo moolasha dee waaweyn dabaqa afraad cuntada ku taalo inta badan dabaqa ugu sareysa cuntada waxa ku taalo xagaa sare inta tago ayaan kolba mid tagi jiray oran jiray ken ketchup magaaso ketchup xidhan wallahi billahi anoo xaga daban wuxuu ku siinaya ketchup xidhan saddex ama laba wax saasa mid kale aan tagaa ketchup dana mid kale ketchup inuu sawda ururiyo ketchup taa aan xagga ugu sareysa moolka istaago ayaan sawda tuuri jiray kusi dangerous fama gidi jiro kusi dangerous ayagoo ka ilaalin jireen dadka ku dhufto laakiin dadku yara yaabaan markii ka jab dhulka saa uga dhacday dhaa qaraxdo wuxuu oran jiray xubin soorideen may taa kuma noqon karo waa la xidhayaa be su'aashii diba zuga daba let's go muxuu ahaa wixii kuugu qosol badnaa ee abid ku soo maray ya salaam nooga sheekay bal waa sheekuun bay noqonaysaa wallahi waad qoslaysaa haddaan kaaga sheekeeyo wuxuu ahaa dadka walwaalan anigu sheekooyinka dadka aad u akhristaan aan jiray buug baan jiray sheekooyinkao dhan ku qoranya soomaaliga dadka waalwaalan wax ka caqli badan haddana ma jiro haddana iyagoo waalan ba haddana qosol yihiin waxaa lagu leeyahay nin waalan ayaa wuxuu ka baxsaday meelahan cilaashyada lagu hayo daatana hayaay alaaran baa la qayliyo waxaa la yidhaha nin baa baxsaday hayaay waa la waayey ninkii soo noqday meeshuu soo gargaraacay moogti markaasuu yidhi niyo hadeer nin waalanima baxsaday markaasuu yidhi haa masuu yidhi haa sax masuu adu maxaa masuu yidhi kii waan laawey waan hubinaya inaan baxsaday waan hubinaya sheekadaasaa aad iigu qosol badnayd su-aashadii saddexaad let's go weydii okay haddii aan da'daadu lagu sheegin oo lagu odhan lahaa qiyaas imisaa da'daada ku qiyaasi lahayd anigoo da'deeda lay sheegin
alla odhan lahaa qiyaas horta dadkan isfahanaan eegi lahaa ya dadkan sagaraaf garan magaas odhan lahaa misjir baa tahay niyo iyagan qiyaas lahaa meel dhexe average xisaab baan gelin lahaa jira 20 25 meelahaasan qiyaas lahaa waxaad ka qiyaas qaadan waa lahayd qofka sheegi lahayd. garaad adigu may haddana marmarna waxaan odhan lahaa niyo maybe waan sii yarayn lahaa ma garanayo wallaahi imika for example kale markaad inan ku tiraahdo inteed jirtaa ay ku tiraa intaa inteedaas hadda ma midhaba laba ku darsan lahayd صح mar walba qofka la fadhiyaba isku daabaan nahay ma oran lahaa marka dambana waan qiyaas lahaa marka anu soo noqdo ana lahaa ka horta ma isfahmaysin ya inantii horta maxay lahayd ciyaal beeda naga daanay tanna al caqligiisa ka qiyaas qaadan lahayd anaa ku fahmay waxa soo loo qiyaasa dhaqtar halkaasaan dhiganayaa waxay soo baxay taageero noocee ah ayaad u baahan tahay waxaan u baahanahay dad horta marka koobaad aan caytamin dad dhiirigelinta yaqaana oo dadka dhiirigeliya dadka garab istaaga soomaalideenana runta marka la eego hadday arkaan qof wax samaynaya badanka ma taageeraan way yar yihiin inta dadka taageerta ama garab istaagta laakiin waxaan jeclaan lahaa dad dhiirigeliya taageero lacageed maad u baahnayn ariyaha lacagtu waa muhiim taageero dhaqaale oo taasaa ka muhiimsanaysa okay number 4 question 4 mala saaxib su'aalahan iyadoo ingiriis lagu soo qoro jeclaan leedo may anu si macaan ma akhriyaa wala akhriyaa soomaaligiisu ajoog muxuu ahaa arin been ah oo aad in badan soo rumaysnayd muxuu ahaa arin been ah wallaahi waa aad in badan soo rumaysnaa ya horta dhegdheer niyo taa waan ka baqi jiray naga taaniyo taa لكن يشوفني والله ليش يقول بعد كذا والله دقدير وين رمي سلقوه وخجري قور وجهت لك أساسا بيرك هو يجري هبين كده وريا عرفتها لو سيحيا عند الدعي شرتي عن شرتي إنه يقول يسجل شرتي في قاعد طلع شري يا أصلا تفكير هذا اور ما دبت كمان وريا اور ما دبت كمان أنا هو مثلاً نقولين ولا إسلام هو ده ما نبعه على إسلام تنجي لاني يلا دقيقة دقيقة وحكاية شو اوكي كويشن فور اما سؤال هذا افراد سوما هذه ها اي ايش الافراد حد وقتك او بدن ku bixisa maalintii nooga sheekay waxaad bal maalintaada kaga soo bilowdaa subaxii duhurkii ilaa habeenkii rasmi anigu maalmuhu way kala soocayeen maalmaha qaar waan iska hurdaa maalmaha qaar waxbaan idid garayaa maalmaha qaar asxaabta la qaataa maalmaha qaar maalmahay way farbadeen maalin walba wixii iga soo baxan qabtaa aan habeenkii balaan garay ma jira laakiin wax gaar oo aad yani routine oo ku soo celceliso ninkaas iga su'aalo fiicaniyo dagdheereho question 5 ka baada waayo qofka mar walba ku taageera absolutely yes taasoo iska fududinayo anigu waa hooyadii mar walba taageertaa ma sha Allah marka aniga taas aad bay igu fududay good goorma ahayd markii ay noloshaadu isbedeshay wow life change wallahi change 2016 waqtigan waxbarashada tagay bariga waxaan jiray ciyaalka reer abayaashood macal dhakhtarka u kaxayeen hadda xanuusto ilaa abaayag xayay baa meel tagi jiray laakiin markii aan xagga waxbarashada tagay ayaan bilaabay inaan naftayda oo kaliya wax u qabto hadda marka qaar waxaan xasuustaa migrationada la tagay baasaboorada line baan isaga feeli jiray lama maalintii ugu horreysay Soomaaliya line baan iska qabsanaya markaas saan ugu jiro loonayaa close weeye ama ka kala tag oo halka horta lacagta ku soo bixi marka waxaan oran karayaa waqtigii aan jaamacadda tagay easy my last question kuwii hore way macaanaayeen insha Allah tanna ya baba sheeg hal shay oo aad ku jeceshahay may toon ka helay hay si fiican oo akhriina joog hay okay sheeg hal shay oo aad ku jeceshahay qaabkii lagu soo koriyay استلا ما شاء الله سؤالها عاود adiga waa heer caalami sax dee laga dhisay يا xagga Soomaaliga laga dhisay ha hal shay aan aad u jecelahay waxaan bartay ya Soomaaliga aan fahmayo ku hadli karo aan videoska ku duubi karo ya ku heesi karo absolutely wallahi billahi ma sha Allah deesan leeso koriyo Soomaaliga la barayo Soomaaliga ba garanay anigu English garanay
marka come on man. good way Yeah, good yeah. question my last question halka laba su'aalood baa ku jira su'aal aniga leh su'aalna ninkaas leh oo su'aalishii ugu dambeysay baan qaadanay maxaad ka qoomamaysaa waxaad samayso ka qomayso tirada waxaasina waqtigii aan iskuulka dhigan jiray baa waxaa jirtay iskuulkaygii primary secondary waxaa ka qoomay inaan aad u soo sheekaysan haasaawin aan aad u soo haasaawin way berigaas hasaawaha aad u macaanaa okay su-aashii ugu dambeysay Final question. anigaa qaadanaya wuxuu ihi waa maxay 5 dabeecadood oo aad leedahay uguna jeceshahay okay 5 dabeecadood aan leeyahay waxaa ugu horeysa kow waxaan ahay humble qof Be humble. waxaan ku fiicanahay isku dayga yani waxyaabo kala duwan aan isku dayo waxaan ku fiicanahay agaa English waxaan ku fiicanahay cibaadada saddex waxa kaloo aan ku fiicanahay communicationka yani dadka iyo asxaabta iyo mataqaana soo loo xiriiriyo last waxaan ahay qof furfuran flexible oo yani qof kasta is fahmi kara Open man. mashallah open minded open minded Open man. open minded Giligiis bro. barnaamijkeena saas inoogu taas inoogu xiriyahay aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan ku nagas labada qof ee ku xigay ay insha Allah rajeynaa tan iyo inta mar dambe hawada ku kulmi doono channelka marka koobaad like subscribe share Subscribe. Zero. intaba